waa hagaag daawadayaal soo dhawaada halkani waa telefishinka STN oo idinka imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. barnaamijku waa islaaniga waa dabcan sida u jeedin waa islaanigun waxana igala qayb qaadanaya mataankayga oo AI waxana la yiraahdaa Cawaale Warfa. soo dhawaad Cawaale. waa dhawahay aad iyo aad baad mahadsan tahay daawadayaashana waa salaam. barnaamijka waxa aynu ku qaada dhigi doonaa AI-ga ama mashiinada aqliga leh ee aqliga macmalka loo yaqaano aqliga bini'aadanku sameeyay dabcan oo noloshii bini'aadanka dhinac walba ka saameeyay. waaga su'aasha ugu horeysa ee rabo in aan ku weydiiyo waad ogtahay AI-da ama muxuu ahaa aqliga macmalkii noloshii bini'aadanka oo dhan saameyn fara badan ayaa uu ku yeeshay. waxana uu la wareegay shaqooyinka badankoogii oo ay bini'aadanku qabaneen xataa shaqooyinkii waaweynaa ee dhakhaatiirtii looyaradii dirawaladii wax walba oo bini'aadanku qabanayay waa uu qabanaya. ma isleedahay sanadaha soo socda ee aygu bini'aadankii ama dadkiiba howlgab ayaa uu ka dhigaya? aad iyo aad baad umahadsan tahay Cawaale, aad baan ku salaamaya adiga iyo dadweynahaba. waa runta tiknoolajiyada AI-da ama aqliga macmalku sanadihii ugu dambeeyay aad baa u faafay oo noloshii bini'aadanka oo dhan dhinac walba uu ka saameeyay. waxa kale oo sidaad sheegtayba uu sababay in shaqooyinka qaarkood uu la wareego, laakiin anigu ma qabo in shaqooyinka oo dhan uu bini'aadanka ka saarayo isla markaana uu bini'aadanka ka dhigo howlgab. waa runta shaqooyinkii waaweynaa sida xitaa xirfadda ah ee professionalka ee bini'aadanku ay sanadaha badan ay waqtiga badan ay ku luminayeen sida dhakhtarnimada, looyarnimada iyo shaqooyinkii xirfadlaha ee maalinlaha ahaa sida xisaabaadka iyo muxuu ahaa in ururinta macluumaadka xataa dirawalnimadii ayaa ay soo galeen mashiinadan aqliga leh oo ay la wareegayaan. laakiin tiknoolajiyad kasta oo cusub marka ay adduunyada ay kusoo biirto waxay wadataa dadku cabsi bay ka qabaan iyo phobia. tusaale ahaan markii baabuurta la sameeyay baabuurta ay suuqa soo galayeen dadku cabsi badan ayaa ay ka muujinayeen oo dadkii adeegsanayay muxuu ahaa baabuur gaari dameerka iyo muxuu ahaa gaari xima baabuurta fardaha xagga daba lagaga xidho waa ay ka cabsanayeen bilowgii qarniyadii hore. laakiin waxa uu shaqo cusub iyo boosishano cusub oo shaqo ayaa soo baxday, kii injineerkii, makaanigii, kii sameynayay, kii isku xidhxidhay, xataa muxuu ahaa kii iibinayay dhiilaradii, kuwii muxuu ahaa maydhayay oo meelihii lagu maydhayay ama car washka ahaa. marka tanna waxaa la aaminsan yahay tiknoolajiyadan cusub waxoogaa waa dabeecadda bini'aadanka in ay bini'aadanku ay waxoogaa ay cabsi ka qabaan markay tiknoolajiyadu ay timaado. laakiin anigu ma aaminsanay in bini'aadanka oo dhan ay tiknoolajiyadani ama mashiinadani aqliga leh ay ka dhigayaan dadka howlgab. cabsidu waa jirtaa oo tusaalahan soo qaatay baabuurka oo kale la mid maaha tiknoolajiyadani laakiin waa mashiin isagu siduu si madax bannaan u fikiraya oo injineeradii sameeyey qaarkood muxuu ahaa barnaamijyada ku shubaya qaarkood ay la yaabeen sida degdega uu muxuu ahaa uu mashiinkani wax u baranayo. marka cabsidaasi waa jirtaa, laakiin waxaa soo baxaysa in uu bini'aadankii caawinayo oo waxyaabo badan u fududaynayo. shaqooyin cusubna way soo bixi doontaa oo qofkaas maamulaya, kuwa programmada sameeya, codinka, sida muxuu ahaa macluumaadka iyo daatada, waxyaabahaas adigu ku saabsan shaqooyin fara badan oo aan hadda jirin. qaarkood waa abuuray, laakiin waxaa soo socotay in shaqooyin fara badan uu abuurayo. laakiin shaqooyin badan oo halis ku jira xitaa taadan iminka aad hayse shaqada wariyanimada, taa muxuu ahaa editinka, barnaamij soo saaraha, qoraalka, filin samaynta, sheeko samaynta, sheeko curinta, waxaas oo dhan xitaa muxuu ahaa halis buu ku hayaa
oo waa uu la wareegi doonaa. laakiin waxaan anigu aaminsanahay aniga laftigaygu AI in loo dhisaangareeyey mashiinadani in ay bilaadanka caawiyaan, laakiin ayna shaqadii ayna la wareegin oona bilaadanka howlgab ayna ka dhigaynin. laakiin horumarka bilaadanku ay ka gaadheen xalka AI-ga iyo teknolojiyadda guud ahaanba, dad badan ayaa shaki gelinaya. waxa ay leeyihiin 40kii sannadood ee ugu dambeeyey bilaadanku si xawaare leh bay teknolojiyadda horumar uga gaadheen. waxay leeyihiin si aad uga degdeg badan intii weliba la filayay ama macquulka ahayd. waxay leeyihiin wixii horumarkii 1000 sannadood qaadan lahaa ayaa ay 40kii sannadood ee ugu dambeeyey ay gaadheen. waxaana ay qaarkood dadka aaminsan aragtida shirqoolada oo qaarkood saynis yahano ay ku jiraan, waxay aaminsan yihiin in teknolojiyadan ay tahay mid biniaadanka ka soo gashay noolayaal aan biniaadan ahayn. waxa ay aaminsan yihiin in noolayaasha aan biniaadanka ahayn ee ku nool dhulal kale ama meerayaal kale in diyaarad ay wateen ama walax duusha ay wateen ay ku dhacday magaalada Roswell ee gobolka New Mexico. taasna ay dowladda Mareykanku ay qaaday oo ay dib u farsameeyeen teknolojiyadaas. dadka saale taama aaminsan tahay adigu haddii aan ku weydiiyo? horta sheekadaasi way jirtaa, waana run. bilaadanku sanadihii ugu dambeeyey xagga horumarka teknolojiyaddu aad ayuu xawaare sare ugu sareeyey. taasi laakiin culimada badankooda, khubarada badankooda waxay u aaneynayaan maalgelin iyo dadaal fara badan oo bilaadanku sameeyeen, iyo in dowladaha badankoodu ama dowladaha horumaray iyo shirkadaha waaweynba ay aqliga biniaadanka ay maal gashadeen. taasoo keentay maadaama aqligii la maal gashaday oo lacago fara badan lagu bixiyey in aqligii la tuujiyey oo cilmi baaris fara badan natiijo laga gaadhay. laakiin dad badan ayaa iyaguna qaba oo kuwa qaba aragtida loo yaqaano aragtida shirqoolada, oo iyaga laftigooda khubaraha waxa ay sheegayaan in biniaadanku teknolojiyadda intaa leeg ee sidan u casrisan uuna waqtigaa kooban uuna ku gaadhi karin, oo in heerkan la gaadho ay biniaadanka caadi ahaan ay ku qaadan karto 100 sannadood iyo 10 sannadood. waxa ayna leeyihiin wixii 1000 sannadood lagu gaari lahaa ayaa ay ku gaareen 30 sannadood iyo wax ka yar. dhacdada aad sheegtay oo ah in walax duula oo ay noolayaal kale oo hawada sare ka yimiday, walaxdaasi ama UFO waxa loo yaqaano, walaxdaasi duulaysa ay la socdeen noolayaal kale ay ku dhacday magaalada la yiraahdo Roswell oo wadanka gobolka New Mexico 1947. dhacdadaasi way jirtaa. dowladdu markii hore way xaqiijisay, laakiin 24 saacadood kadib ayaa ay bedeshay sida wax u dhaceen, oo ay sheegtay in waxa meeshaas ku dhacay ahayd waxa la yiraahdo cilmi balloon ama BB weyn oo cilmi baaris ah. laakiin way jirtaa in sheekadaasi way jirtaa, laakiin dowladdu way dafirtaa. sida dadka badanku ay aaminsan yihiin dadku badanka waxay aaminsan yihiin qaarkood oo dad khubara oo saynis yahani ay ku jiraan in walaxda halkaasi ku dhacday ay ahayd diyaarad ayna bilaadan sameynin oo noolayaal aan bilaadan ahayn ay la socdeen oo ku dhacday dhulka, laakiin ay dowladda Mareykanku ay qabatay oo ay yimaadeen muxuu ahaa meeshaasi ay diyaaradaasi ama walaxda duulaysa ay ku dhacday, ay qaadeen noolayaasha diyaaradaasi la socdayna ay ahaayeen 3 noole oo aan biniaadan ahayn oo dhaawac ahaa. dowladdu ay qaaday isla markaana ay geysay saldhigga aadka loo ilaaliyo oo ku yaala gobolka Nevada oo la yiraahdo muxuu ahaa Area 51. halkaasna ay injineerada iyo saynis yahanada Mareykanku ay muxuu ahaa diyaaradda iyo teknolojiyadaasi aanan muxuu ahaa noolayaasha kale ah ay dib u farsameeyeen. waxa la yiraahdo reverse engineering oo ay dib u farsameeyeen. marka waxay leeyihiin teknolojiyadan casriga ah in halkaas ayaa ka timid waa wax biniaadanka ay noolayaal kale ay ka dhaceen amaba
ay siiyeen ayaa la aaminsan yahay. laakiin anigu waxaan aaminsanahay in markaan eego tusaale ahaan hadiiba ay diyaaradaas ama walaxdaa duulaysa ay koobiyeeyeen weli ma arko wax la nuuca oo ay bini'aadanku sameeyeen. diyaaradahani duulaya weli waxay u hoggaansan yihiin uun muxuu ahaa qaanuunka ama xeerka physics-ka ee weli ay bini'aadanku isla aqoonsan yihiin. sida laga sheekeeyo walaxda duulana qaabka ay u duulayaan iyo xawaaraha ay ku duulayaan uma eka weli kuwani ay bini'aadanku sameeyeen. sidaa daraaddeed anigu badanka waxaan aaminsanahay in sheekadaasi weli dowladda waa qarisaa, laakiin weli waxaan aaminsanahay in teknolojiyadan xawaaraha ku socota, mashiinadani fikiraya, mashiinadani aqliga leh ay tahay in ay ka soo maaxatay maskaxda bini'aadanka.